maanta imaatinkani waxaan ka jawaabaynaa taliyaha iyo hoggaankiisa caafimaadka maxaan dhahdaay arrin run ahaantii ayagana ay ka welwelsan yihiin oo ah xabsiga dhexe sidaan la soconno cadad aad u ballaaran oo muwaadiniin Soomaaliyeed baa ku nool haddii ay dhacdo in arrintani ay halkan soo gaartana waad garan kartaan sida uu cudurkani u fidaayo marka baahidaas jirta ayaa wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka warfaafinta ay u yimaadeen maanta iyo tallaabooyinka la qaadi lahaa wasaaradda caafimaadka 2 maalmood ka hor inay shalay ahayd daraad maqan hoggaanka ka warbixin doona cayinaad bay qaadeen oo dhowr qofood 10 qofood waxaan rajaynaynaa resultigeeda maanta inuu soo baxo ilaahay hadduu yiraahdo taasoo ka tarjumaysa marka ogaansho aan ogaanayno hadday meeshani wax ka jiraan iyo haddii kale hadday dhacdo in arrintaasi ay dhacdo waxaa markaa waajibna saarmaya in wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka oo dhan ay qayb weyn ka qaadato baxnaaninta iyo dib u yaraynta dadka meesha ku nool marka waa talaabada koowaad ee hadda aan qaadnay waxa weeyaan baaritaankaas kadibna wixii kale xigo oo adeegyo ah ee ku jiri karto haddii in la qalabeeyo ay noqoto isbitaalkan yara ay ciidanka usluubta ay meesha ku leeyihiin ama haddii aan talo kala keenno isbitaallo kale oo aan meel ugu heli karno oo meelahaasna lagu baxnaanin karo ayaan taliyaha aan kala tashanaynaa insha Allah iyo hoggaankiisa caafimaadka hoggaanka caafimaadka asluubta waxay ugu horeeyeen dadkii ugu horeeyay waxay ahaayeen xafiiska wasaaradda caafimaadka noogu yimid mar alla markii COVID-19 la sheegay ayagoo og dhibaatadan inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii fidistiisa ay gaarto maxaan radaa xabsiga dhexe annagana maanta jawaabtaas ayaan u joognaa waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo inuu ilaahay ka hayo dadkan masaakiinta ee meesha lagu hayo oo run ahaantii ayagoo dadku ugu horeeya ugu dhib badan ay noqonayso isu dhawaanshahooda iyo siday u nool yihiin iyo qaabkay u nool yihiin dartiis waxaan rajaynaynaa inaan meeshoona soo gaarin insha Allah tacaala waxaan mar kale ku celinaynaa in wasaaradda caafimaadka diyaar ay u tahay qaybteeda inay qaadato inay diyaar u tahay maxaan dhahdaay xaaladda meel walba ay maraysana in aan la wadaagno ilaahay hadduu yiraahdo taliska marka taliya aad u mahadsantahay soo dhaweynta